saxafiyiinta ka howlgala gobolka Togdheer oo maanta shir jaraa'id si wada jir ah ugu qabtay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xariga xaqdarrada ee labada saxafi ee ka howlgala magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil kuwaas oo maalintii shalay ay xabsiga u taxaabeen ciidamada booliiska gobolka Saaxil iyagoo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay sida ugu dhaqsaha badan leh xorriyadooda ugu soo celiyaan saxafiyiintaasi halkan ka cambaareenaya wariyaasha Som News iyo Kalson TV lagu xidhay magaalada Berbera iyadoo uu ku horreeyay wariyo hore la xidhayna dabcan waxaanu leenahay haddana bahda saxaafadda gobolka Togdheer dawladdu ha ka dayso xidhitaanka ay xidhayso shaqo darrada saxafiyiinta Soomaaliland oo u adeegaya bulshadooda howlgala Som News iyo Kalson TV magaalada Berbera waxaan leeyahay ninka mas'uulka markuu gudan kari waayo waajibaadka ka saaran qarankiisa markuu gudan kari waayo kalgacaylka uu kasban kari waayo shacabkiisa ma aha in uu wariyaa ku xadanteeyo ma aha inuu xaq darro aanu geysan ugu geysto marka ugu horeysa ninka mas'uulka waa inuu kasbada kalgacaylka bulshadiisa kadib aanu eed ka saarin warbaahinta ka howlgasha magaalada Berbera u dhiibatay madaxweyne ku dabagal ku sameeyo waajibkooda ha gutaan shaqadooda yaanay noqonde inay wariyaasha gambar ka dhigtaan ay ku fadhiistaan oo ay dhahdaan marba wariyahana fiintii ay shacabku ka qabeen iyo caladii ay shacabku gadoodka ay ka qabeen mas'uuliyad darradiis kabada sare ee Soomaaliland oo ku baaqayay inaan wariye la xiri karin ilaa iyo lagu hayo dambi cad oo waaran maxkamadeed loo soo jaro iyaguna sidii ay maxay toolay xerada ugu jirta ay marba qoorta soo qabanaya mise qoolka xarig u gelinaya oo qol yar ku arbudaya ma aqbali doono mana aqbalayno waxaan leenahay arintan ma dul qaadanayna xukuumaddu sharciga kama weyne sharciga hoos u eeg oo wariyaasha xaqdarradii gardaamada ka deysho runtii sharciga ma dawladda ayaa khaldaysa mise saxafiyiinta khaldaysa waxa muuqata inay sharciga dawladdu ku tumanayso oo maxay ahayd tolay ay sharciga ka dhigatay meel ay ugu dhuumato maxay ahayd tolay saxaafadda waanu ka digaynaa xarigaas waxaan leenahay si degdeg ah loo sii daayo xarig dambe xaqdarra ku dhici karaana yaanu jirin magacaygu waa Shafiic Absaaq Jaamac wax ku magac dheeraashiina wax ka xumay labada wariye lagu xidhay magaalada Berbera waxaan leeyahay xukuumaddu maalin kasta u dulqaadan meeno wariye lagu xidho meel oo jeel iskaga xidho waxaan uga codsanayn in xukuumaddu ay waaran soo jirto ama ay dambiga ku haysto ay ku cadeyso runtii wariyaasha gobolka Togdheer waxay maanta halkan isugu yimaadeen inay cambaareeyaan waxaan xukuumadda madaxweyne Zeeland ugu baaqayna inay sii dayso wariyaashaasi magacyadooda hore loo soo xusay runtii waxaan u aragnaa xukuumadda Axmed Zeeland inay tahay xukuumadihii dalka soo maray inay tahay xukuumadda ugu xariga badan leh wariyaasha Soomaaliland Berbera waxay noqotay hoyga xaritaanka saxafiyiinta dawladana sharciga kama weyna maxkamadduna waaran ammaan dhaweed ay soo saartay waxay ahayd in waaran la'aan aan lagu xiri karin suxufiga ma hadda nin ka soo baxsaday meel kale oo sidii doona laga yeelayo suxufigu waa nin u adeegaya bulshada hadduu xaqiiqda sheegana maaha mar kasta in xadhig lagula degdego waanu ku cambaareynayna xukuumaddan Axmed Zeeland way caadaysatay xadhiga wariyaasha duwanay ka howlgala daafaha Soomaaliland ha ugu badnaato magaalada Berbera waxa ku xidhan magaalada Berbera oo maalintii shalay ahayd la xidhay wariye Axmed Saciid iyo Cabdiraxmaan oo ka kala waramay telefishinada Kalson iyo telefishinka Somali News xukuumadda Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inaanay jabin go'aankii ay soo saartay maxkamadda sare ee Soomaaliland ee uu gudoomiyuhu ku dhawaaqay inaan suxufiga la xiri karin ilaa waaran loo soo qabto oo loo soo qoro sifo sharciyana lagu xidho habka loogu talagalay in maxkamad la saaro markaasi maxkamaddu ay waaran u soo jarto waaranka kadib hadii lagu helo la xidho qofka suxufiga waxaan u malaynayaa inay indhala'aan wali ku sii wado xukuumaddu indhala'aantaana waxaan leenahay niyo ka digtoonaada haddii kale dalku wuxuu noqonayaa dal la iswada dhinac yaaco oo dhibaato keenaya mar haddii aan xukuumadda sharciga eegayn oo waxay qaraaradii maxkamadda ka soo baxay aanay ku dhaqmayn waxaan leenahay waa yaan darro wariyuhu waa adeegaha bulshada wariyuhu waa dhagaha iyo indhaha bulshada laaluush ma qaato ma gayo xadhiga aan loo soo marin shifo sharciya dastuurka Soomaaliland wuxuu dhigayaa in wariyaha xadhiga aan lagula kici karin ilaa la soo maro heer maxkamadeed saxafi ee ku xidhan magaalada Berbera ee u kala waramay telefishinada Som News TV iyo Kalson TV waxaan ugu baaqaynaa dawladda Soomaaliland iyo xukuumadda garwadanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha in labadaas suxufi xorriyadooda loo soo celiyo halkan ka cambaarayno suxufiyiinta xukuumadda Zeeland ay ku xidhay magaalada Berbera
suxufiyiintaas oo ka howlgeli jiray telefishinada ka ah Kalson TV sida Axmed Saciid iyo Cabdiraxmaan Axmed Ciga oo isna ka howlgeli jiray telefishinka caalamiga kale ee Sam News dhammaantii haddaanu suxufiyiinta gobolka Togdheer waxaanu halkan ka cambaaraynaa xariga sharci darrada ah ee xukuumadda Axmed Silaay ay kula kacday suxufiyiinta anigoo ku hadlaya magaca ururka suxufiyiinta Sagja أنا قدومي كحيان كوركاس ما أنت وحنا هالكن دوني أنا كجهضلو أنا أعرف صبين أنا راح حين قديه هذا وأما كل بعد وريه قال كهول قبل كساحل الحري ورنتي كتر سنو كسكتها ثاني واحد كتوس رسا ما دامو فيه شرعي هالو مريواي in waxa lagu haystaa ay tahay wax kootrabaan oo aan xaq loogu lahayn lagu xidho waxay ahayd maalin dhaweyd markii gudoomiyaha maxkamadda sare uu soo saaray go'aan inaan maxkamad laan wariye la iska xidhin وبرواقة محمد شبكة عالمي قودونا نيوز مقالة برعو